السلام عليكم الحمد لله وكفى soo dhawaada waa darsigii labaad ee koorsada inoo socotay sidee ayaa loo sameeyaa website free ah misana iyadoo lagu dhisayo software-ka caanka ah ee wordpress.com insha Allah taala halkii ayaan ka siiyaan baqaadina darsigii hore wuxuu inoo marayay inagoo taagnay website-kii waynu dhisnay waxba sharaxaad badan ay kamaana bixin laakiin muhiimada koowaad ayaa waxa ay ahayd inaan dhisno website-kan oo aan taagno aas-aaskii hore ayuu ahaa dabcan waxaa laga yaabaa inaad tahay qof muuqaalkan dib ka daawanaya kulli waxaan kugula talin lahay boqolkiiba boqol inaad muuqaalka ka horeeyay insha Allah waxaan ku soo dhigayaa muuqaalka hadda aad daawanayso hoostiisa ayaan soo dhigayaa linkigiisa insha Allah taala isku day waa darsiga koowaad waxaynu ku soo qaadanay sida loo dhisayo website-kan bilaash ayaan website-kan ku dhisnay oo lacag la'aan dhan waliba hadii uu ahaan lahay hoostiga iyo sidoo kale dhankaayo domainka labadaba si free ayaan ku soo qaadanay qofkii dib ka daawanayo insha Allah taala qalanteenu waa inaan muuqaalkii hore soo daawato si anagoo kale aadna aad maxaa la yiraahdaa website fiican oo lacag la'aan u soo heshid darsigana halkan aad ka sii baqaadid oo aadna practical ku soo dhisid insha Allah taala halkii ayaan ku sii baqaadina waxaan si toos ah u sii guda galayna website dashboardkiisa ayaan tagayna si maxaa la yiraahdaa website-kan aan ku soo qorxino hadda dabcan kulli meeshaan wax ka aragto wax aan website u ekeen oo aad u farxumo badan farto qoraal oo archive waxyaabo saas oo categories waxaas meeshaas ugu qorayn hello world waxa website hadda ka tarjumaya maaha laakiin insha Allah taala hadda ayaan soo qorxin doonaa kulli waxaan hubaala meel markaa rabto inaad hagaajiso maxaa la yiraahdaa kood hore waxaad samaysaa waa wixii waaweyn ee yaale ee wasaq ah ayaa ka qaadaysaa waxaad ka dhigaysaa cadaan si haddii aad wax ku beerayso oo kaleeto uu nadiif kugu noqdo aysan kuwan ku qartaateen marka insha Allah waxaan oo dhan ayaan iska rifi doonaa waan iska goyn doonaa insha Allah taala marka website-keeni aan soo galno sida caadadeena uu inoo ahaa wuxuu ahaa ciwaankiisa haddii aan ilaawin tijaabo ayuu ahaa user-kii aynu ku soo galaynay naga diido kulli waan fiirinayna marka insha Allah waaragtaan si toos ah ayuu u qaatay uuna inoo soo saaray haba inaga dahay hadduu rabo inkastoo aan rabin sidan u daaho laakiin hadda kulli uu inoo soo saaray maasha Allah marka hadda sida halkan idinkaga muuqata page-kan waxaan dhinaca safana aragtaan oo dhan kulli sida hore maxaa la yiraahdaa koorsada aan ku soo bilownay waxaan qaadan doonaa oo hadda asaasi u ah website-ka WordPress maxaa la yiraahdaa postiga media pages comments appearance oo saas oo kale asna kala baxo kuwan qaarkood ayaa kala baxa plugins users way kala baxaan tools saas oo kale setting waxaan soo dhan way kala baxaan marka suurtagalna ma aha hadii aynu raahno post ayaan ka bilaabayna setting ayaan ku gabagabeynayna xoogaa ma iskeenayso waxa laga yaabaa in midkan aan ka bilawno kan uu ku gabagabo ama kan aan ka bilawno sida tusaale post waxaan ka warqabno wax la soo dhigay inuu yahay goormee meel wax la soo dhigaa la soo post gareeyo markuu yani dhisan yahay oo nadiifsan yahay soo maaha marka meelaha dhexe ayaan insha Allah taala ka bilaabi doonaa appearance-gan ayaa hadda hadafkeenu uu yahay ayaan aadi doonaa insha Allah taala markii aan halkan joogno waxaan aadaynaa appearance sida aragtaan waxa ku dhex jira dhowr file sida themes and customize widgets menu theme editor marka hadda hadafkeenu waa widgets inaan tagno si maxaa la yiraahdaa waxyaabahan halkan ka muuqda aad aragtaan aan ugu gurno oo si nadiif ah inuu noqdo insha Allah waa aragtaan maxaa la yiraahdaa halkan footer hadda inta maxaa ka muuqda searching waxaan hadda halkan ka aragtaan oo idin dabcan halkanna waa ay ka muuqdaan marka insha Allah hal ayaynu uga saareynaa tan oo imaanayna delete ayaan leenahay searching inkastoo iska fiicneed laakiin daymisyo qaar waxaan soo xareyn doonaa oo maxaa la yiraahdaa searching kaas leh uma baahnin
tan ayadana maxaa la yidhahdaa uma baahnin comment in maxaa la yidhahdaa commentiya dadka wax kasoo dhiibteen iyo in geesaheen ay kasoo muuqdaan xasuusta ama waxyaabihii ayaamihii lasoo dhaafa lasoo dhigay kuwii ugu dambeeyey uma baahnin categories saas oo kale uma baahnin isna waynu baran doonaa oo wuxuu ku jiraa qeybahan boostiga iyo hoos imaanayaa wax laga wado categoriesna waynu soo baran doonaa eragan marka aad fiiriso luqadda ingiliishka waxay si toos ugu dhawaaqayaan category ay dhahaan category laakiin hadda aniga category ayaa xoogaa ila ron oo dad badan oo maxaa la yidhahdaa ku takhasusay ku dhawaaqista erayadanna aan maxaa la yidhahdaa hadda aan kasoo xigtay tan iyadana waan daleedeena insha allah waayahay markaan aynu aadno pagekeeni refresh ayaan dhehnaa ama F5 sida aad maxaa la yidhahdaa u taqaanid waxaa arki doonaa insha allah in halkan waxba aanay ku harin meeshaan waxaa aragtaan wixii dhinacan xigay ee widgetska loo yaqaano ay dhammaantooda baxeen keliya waxaa soo heray hello world isaga xataa haddii aynu u baahno insha allah tacaala waan saari doonaa sababtoo ah isaga waa wax boostiya maaha waa plug ins boostiisi toos adduunyada inkastoo dadka iska wada qaataan waa plug ins u dhisan sida boosti oo kaleeto hello world soo dhawow adduunyada waxaas camal ku salaysan waaye marka asagana insha allah tacaala waynu cuni doonaa isaga markaa cunayna waxaan aadaynaa dhanka iyo plug inska ayuu naga xigaa plug ins marka plug ins haddii aan sharxad yar ka bixiyo plug ins waa telefonka androidka hadda markii uu dhisan yahay waxaa lama horaan ah inuu isticmaalo wax loo yaqaano abiska wordpresskana waa plug ins haddaa la haynin inta badan wordpress quruxdiisa ma muuqanayso qaab dhismeedkiisa ma muuqanayo waa aasaaska iyo sharxaadda iyo wax walbo la isticmaali doono inta badanna waa arki doontaa plug ins ayuu noqon doonaa aan tirtirno marka plug inskan wuxuu ku jiraa qaybta installed qaybta ay ku install garaysan yihiin ayuu ku jiraa ku dar maaha editorna maaha sida halkan ka aragtaan waxaa inoo install garaysan dhowr xabo oo ay kamid tahay class editor oo cidii filinkii hore muuqaalkii kan ka horeeyay soo daawatay ay ku ogaan karaan markii aan soo install galinaan hello world activate waayo hadda daleed ayaan iska leenahay ama maxaa la yidhaahdaa oo aan iska tirtiraynaa wuu tirtirmay maasha allah hadda kolley haddii aan tijaabo haddii aan websitekeena refresh dhahno waxaa insha allah inoo muuqan doonta inuu weli ku haray laakiin waan iska bixi doonaa kolley hadda qaab wax kaloo hadda pagekan ku jiro ma lahan saas daraaddeed waxay u muuqatay inuu isaga ka muuqdo marka tallaabada xigta aan qaadina waxay tahay inaan tagno dhanka iyo appearance maxaa appearance nagaga jira appearance wax walba ayaa naga jira waa meel udub dhaxaad u ah wordpresska themes ayaan tagaynaa si aan ugu soo install kareeno ama ugu soo duubno themes qurux badan oo websitekeena insha allahu tacaala inoo hagaaji doona halkan inoo soo baxday waxaa ku jira themesyada originalka ku ah ee kusoo dega sida 2016 17 saasoo kale 19 oo 19 kan ayuu hadda inoogu jiraa marka add new aan leenahay wuxuu inoo soo saari doonaa themes free ah oo maxaa la yidhahdaa ay shirkado kala duwan dhiibeen isla markaana account inta ka samaysteen wordpress dhexdiisa kusoo darsadeen sida ka muuqataan halkan dhowr maxaa la yidhahdaa themes ayaa inoo soo baxaya midii indhaheena ay qabato insha allahu tacaala aan isin rahno waa uu qorxan yahay ayaan insha allahu tacaala ku dhisan doonaa waa tahay aniga hadda kan ayay indhahaygu qabteen oo aan is iri xoogaa uu yaro qorxan yahay asaga ayaan insha allah ku install gareynaynaa install ayaad leedahay installing wuu socdaa markuu ku dhammaado insha allahu tacaala waxaa inoo soo bixi doontaa activate gare ayaa inoo soo bixi doonta wuuna dhammayn doonaa markii uu dhammeeyana waxaan si toosa u aadi doonaa qaybta ay sittingiga ku leeyihiin mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu halkan kasoo hoos baxo oo theme editor maxaa appearance inuu hoos yimaado ama in uu sadar cusub isagu inta samaysto maxaa la yidhaahdaa oo sidaan oo kaleeto qayb gooni ah dego dabcan activate ayuu yiri waan active gareynaynaa si uu maxaa la yidhahdaa themeskii uu ugu noqdo maxaa la yidhahdaa ugu soo baxo halkan waayahay markii aan maxaa la yidhahdaa ku shubnay hal mar haddii aan ku laabano xer ayaa dhiman uu dhammeynaya insha allahu tacaala pageka hore ayaan tagi doonaa pageka hore ayaan tagnay hal mar bal ila fiiriya isbedel yar ayaa dhici doono oo ah in pagekeeni xoogaa suurad asaas yar uu u samaysmay asaaska derbiga kulley dhismaha derbiga markii la dhisayo waa taqaanaan asaas yar ayuu u samaysmay kulley hadda waxaan ujeednaa in websiteka uu yaro daahayo insha allahu tacaala plug insyo qaar ayaanu kusoo duuban doonaa oo qurux inoogu noqon doono maasha allah waa aragtaan hadda xoogaa websitekeeni wuxuu inoo sameeyey aas halkan
waa taqaanaan qaybtan waa qaybta inta badan kasoo muuqda haddii websaytyada newska inta kale aad inta badan aad daawataan baga hore caalamka wararka dibadda barnaamijyo gaara sportis waxyaaba saas oo dhan meelaha ay kasoo muuqdaan waa qaybtan marka waan soo dhisi doonaa websitekeena ilaa iyo hadda dhismihii ayaynu ku guda jirnaa meesha hadda waxaa ka aragtaan maxaa la yihahdaa talada koowaad oo ina siinaya waxay tahay inaan menu kusoo darno menu ayaynu kusoo dari doonaa oo ah menu waa kana appearance ayuu isna hoos imaanayaa menus waa kuwa halkan kasoo muuqanaya tusaale haddii aan mid kamid a warbaahinada soomaalida aan iska maxaa la yihahdaa aan tusaale usoo qaato goobjoog.com ayaan insha allahu tacaala aadaya si aan u fiirino waa aragtaan menus waa kuwaana hadda anaga dhismahan hoose ee gaduudka ah anaga keena agtiisa wuxuu ka yahay madow oo waa kana waa inoo dhisan yahay dhismahan hoose marka waa aragtaan meeshaan wararka warbixino maxaa la yihahdaa ammaanka caafimaad ganacsiga teknolojiyada muuqaalo qormo ciyaar waxyaabahan waa maxaa la yihahdaa menu ayaa la yihahdaa menuskaas ayaan kusoo dari doonaa insha allah tallaabada koowaad eena siinaya wuxuu yahay marka intaana menuska ku darin wuxuuna leeyahay plugins ayuu wataa maxaa la yihahdaa daymiskii hadda aan kusoo shubnay ilaa hadda kamaana dhaqaaqin meeshii aan daymis kaga soo shubnay plugins ayuu wataa uuna leeyahay pluginskaas marka waan u install gareynaynaa insha allah plugins badan oo aad noo anfacayo waaye ay kamid yihiin maxaa la yihahdaa contact zaman waxaan oo dhan way anfacayaan marka kuwan waa usoo laaban doonaa intaana pluginska aan install gareynin insha allahu tacaala waxaan soo sameyn doonaa dhowr arrimood oo muhiim ah laakiin waa darsiga xiga insha allah